إذا كوخ يحب أربعة وحاوي اللي يسكو لمان ولا حاجة يكوكو بنتهاي ديجانك يعني سكر هذا إذا كوخ شيء اسمه محاوي اسمه محاوي وحاوي شيء وجوه رأي إنها اللي يسوق بنكران هذا ماشي أقول جرنا واسمه اسمها أي نوع فرق بنكران له إن هدي أكو هرمرة next هدي أكو هرمرة residential building وحاوي اسمها ديجان ضدك ديجان أو حلوة فانا residential building educational building محاور واسمه لو قلت لك عليه إن واحد لو برتو محبرشة سيدو كل واحد كحول governmental building واسمه استعمالان إن دولتها هذه اسمها قارة سوق جدبو وحكوا حاجة public space وحلوة يقانو إن هلو space صراحة هذه أوصل قانو إن وده كنا إن دقوي قال وحاجة أن سبيس الهينين أدي عريض وآه وضيف في عنا الهينين إن قرنيال كهر إن أربع ديزاين إن ملهينين فكرة أو وضيف كلاكلا ديري وأجي لسمينا أيه وحلاقي أبا إن ساسي هيد أربع ديزاين لكن هذه في رينو صراحة إن دقمة الحمار جمع من السوقات وضيف بلارن ملهان إن أدي هو أبدت هاي إن حافظ أهان إن حاجة عافيمات دباتك تاجن ودويك دباتك تاجن إن سيدو كلا تتصور سوق دار السلام أنت بدل ما تكتير رجينا ودويك فرم بدل اللي هي إن أدي هو بحد وين هاي إسبيس في عنا اللي هي كرا إن حتى قريها قال باكين اللي هي وقاري هدية ولا تمكن بتونسي لكن دائما حمرت عمل هدية دقنت هاي إن قاري قوة كان دون تايلا كل جيستي إن next إن شاء الله public space وحنا نحب دونا وحنا يقان مشى أوجدين نحاول مجال وطن إسبان جارهان عاصمة مدريد وجروب سبيس وين له أو لو قلت لك إن البلشة سوي ماذا كوبا شالان نسيني كهلان هذه بوجهة ساعة من أهلشيت ما شاء الله refreshment يبقى كذا just لكن يقولك سهرت هذه نسمت الأول حسن حولها يعني عبوران زي ذا دريمين sidoo kale khams saacad hadii ay u gudbo waa streets wadooyin sida hadda tusaale u soo qaadanayo oo kale waaye hadii ay heshid wado baaxadeeda ay weyn tahay waxyaalo badan ku fuudaan doono number 1 xag caafimaad ahaan wado yariis oo nus mitir hadii xaafadaada ay ku taalo wadadii dhiiqa ay noqoto maxaa lahayd waajib ay ku noqon inaad dhiiqada soo martid cudur badan ay sababi kartaa marka muhiimadda urban design loo sameeyo waxa waaye إن لقى هرتجو عفمات درو البلشة دي هلا نفس في عن يكون والله كران. سيدو كانت أفراد دي أو جدبو كانت أفراد وحاول كانت أفراد وحاول ترانسبورتيشن إن له ترانسبورت تصالح هذه أو سوق الترانسبورت إن سيد شيء مهم وإيه سيد شيء وحاول وده هاي لو يقانو أو وده نظيف مجالات أسكب حلو مجالات الرسوبشة إن هذه أوسق صلاحان وده كنا هذه وده نظيف أو سعد الجديد كفوضان هذه له إن هاي الساكي يعني كسر قرتي إن أبغى إن سودي هل ساعة بر يعني سوق بكاري بسكرتا لكن هذه سنجرين وده هاي ونظيف أو سعد الجديد ك أنا نفوضان إن هذه سنجرين إن ما ماذا ساكي يعني سوق إن برد كسر قرتي ما هو تين سوق كيتو dhibaatooyin badan ay soo mareen wadada jajab waxa laga yaabaa naanidii markii oo intaas oo tan ay soo gurtay waxa laga yaabaa kala bar inay ka feergaroobaan sababtoo ah wada highway oo nadiif ah ma heli karto marka muhiimadda urban design loo sameeyo iyadana qayb ka tahay hadii wada nadiif la helo transportigaas magaalada way fududaan doontaa sidoo kale qaybta labaad waxa waaye degan sidoo kale waxay fududeynayaan transportiga magaalada hadii magaaladaas ay leedahay degan way fududaan doontaa in magaalo kale waxa loogu soo qaado oo magaaladaas la keeno ma jirto magaalo wax walba ay u baahan tahay meesha ay ku dhameystiran yihiin ma jirto muhiim waaye shiyaasha qaar wadanka ay leeyihiin in wadanka la soo dhafistay marka hadii degad ay leedahay idan transportiga fududeynay sidoo kale airport qaybta ugu dambaysa waaye sidoo kale airport hadii ay leedahay way fududaan doontaa wadanka inaad si fudud ugu baxid si fudud ugu soo laabatid kheyraad badan wadanka ay kaystid waa saddexda shay ee fududeeya transportation sidoo kale waxa jiro waxa loo yaqaan landscape waxa waaye goob doog leh coos leh oo jawi raaxo leh saraan hadii ay soo qaataan anaga waxa aad iyo aad u wada naqaanaa meesha loo yaqaan beerta nabadda waa goob doog leh aad iyo aad u qurux badan
tusaale ahaan markii shaqadaas stress ku soo qaadid waxaa u baahan tahay goob oo nasiina ah ku heshid oo koob kafee ah ku cabi kartid magaalada aad degan tahay haddii aysan lahaynin goob doog leh dalxiis leh indhaha aysan ku raaxaysanaynin aad iyo aad ay u adkaan doontaa inaad ku noolaatid waa horumarka aan sii hiigsanayna aan sii gaari doono waxaa tusaale usoo qaadanaynaa iyadana beerta nabadda iyo meelo kale oo saas camal ah haddii aan ka gudubno iyadana waa maxay saameynta aan ugu leedahay haddii aan sameyno urban design iyadana waxaa tusaale usoo qaadan doonaa dalkeena xaafad Daarusalaam aan wada naqaano inta aan la dhisin ka hor qof xataa aqoonay ma jiro in meeshaas waxay ka soo bixi karto duur cidle ahayd wax saameyn ama nugu lahaynin laakiin just markii magaalo laga dhigay saameyn badan ay yeelatay waxa ay korisay xagga dhaqaalaha sidoo kale waxaa ka helay opportunity badan oo xagga shaqada ah dad badan ay shaqo ka heleen sidoo kale maxaa la dhahay deegaankaas qiimihii sicirkii oo boosaskii ama dhulka la kala geli jiray aad iyo aad u kordhay marka mar walba oo magaalo la sameeyo maxaa la waxay ugu yeelan doontaa saameyn badan xag dhaqaalo xag bulsho iyo sidoo kale in shaqooyin fara badan la helo haddii aan ka gudubno maxaa waa ujeedada iyo hadafyada aanan u sameynayno magaalo ujeedadii hadafka u sameynayno maxay tahay laba shay aan u sameynaynaa number 1 in caafimaad ahaan inaan ka horumarno number 2 qurux ahaan inaan u horumarno sida hadda u jeedaan modelkan hortiina yaalo oo kala baxsan yahay qaybna waxaa villooyin qaybna waxaa waaye guryo oo beeshu loo yaqaano oo qayb doog ku ah qaybna waxaa guryo oo isku xiran magaalada way kala baxsan tahay tusaale ahaan ani hadduu ilaahay jaabka lacagtii geliyey qofka diriskayga waxaa laga yaabaa inuu ilaahay lacag jeebkiisa u gelinin haddii dabaq dheer aa ka ag dhisto micnaha asi dhibaatay ku noqon doontaa sababtoo ah dhinaca qoraxda haddii aa ka maro xilliga asi qoraxa u baahan yahay waxaa laga yaabaa inaa qoraxda ani aa ka qaato hawada fireeshkii oo asigoo qaadan lahay ilaan dabaq ka dheer aan deganahay hawada fireeshka asigoo qaadan lahay inaa ani ka qaata laga yaabaa marka si aysan taas u dhicin muhiimadda arbanka loo sameeya ka mid tahay haddii aan usoo gudagalo xaafadan aan sameynay xaafadan aa ujeedaan waxay soo martay 3 qaybood number 1 oo ah dream number 2 oo ah design iyo number 3 oo ah modeling dream maxaa waaye tusaale ahaan ani camal aan lacag haysto lacag aad iyo fara badan aan haystaa marka waa riyooday waxaa ku riyooday in wax cusub aan sameeyo oo profit fiican ay soo gali karto dalka khayraadkiisana oo ku horumari karo number 1 waxaa waa dream waxaa u tagaa nin engineer ah ama urban designer ah riyadii aa ku riyooday aa ka dhaadhicinaa riyadii kadib ninka designerka ah wuxuu sameynaa habkii magaaladaas loo sameyn lahaa number 3 waxaa waa modeling in riyadii lagu riyooday oo la soo design gareeyay la rumeeyo tusaale ahaan sidaa u jeedaan hortiina ka muuqato sidaa u jeedaan waa fuluur balaanka xaafadan hortiina ka muuqda ee ka kooban tahay xaafadan erideeda waxaa waaye 4.1 hektar haddii mitir square ahaan aad ku bedelo waa 410,000 oo mitir square xaafadan saan haddii loo fiiriyo waa 250 mitir saan waa 165 mitir halkii qayb xaafadan inta dad ay degi karto oo ugu talagalnay oo ugu yar uguna macquulsan dadka ugu yar ay degi karo waa 125 qof sababtoo ah halkii hektar dadka ugu yar ay degi karo waa 250 qof marka 4.1 hektar haddii aan soo xisaabino waxaad degi karto 125 qof waa dadka ugu yar ee xaafadaas degi karo eriyada xaafadeena waxa ay ka kooban tahay 4 qaybood number 1 oo ah houses guryahan caadiga ee dadka deegaan dadka ay ku noolaadaan number 2 oo ah commercial goobaha ganacsi number 3 oo ah institutional xaafadaha waxyaalaha loogu baahan yahay iyo number 4 oo ah public area oo loogu talagalay dadka inay nasiino ka helaan qaybta ugu horeysa oo houseska haddii aan fiirino qaybta ugu horeysa ee guryaha waxay ka kooban tahay number 1 villo number 2 beeshu oo ah bangalo number 3 row guryo oo qayb doog ka ah oo isku xirxiran waay inta badan Soomaaliya ma ka dhisno iyo number 4 oo ah blocks waa apartmentiyo oo block u xiran qaybta ugu horeysa ee villada asna fiirino waxa ay ka kooban tahay 20 fuluur balaankeeda noocaas waaye haddii aan fiirino sawiradeeda hab noocaas camal ay u samaysan tahay waa ujeediin baakin ay leedahay goobo nafis ay leedahay sidoo kale
qaybtaana waa qaybta beeshu waa ujeedaan floor blankeeda noocaas waaye sawiradeedana waa kaas habkaas u samaysan tahay beeshu villada wuxuu ugu duwan yahay qaybta gadaal ee guriga wuxuu ka leeyahay doog sidoo kale qaybtan waa qaybta loo yaqaan rooga oo ah asina qaybtaas dhexe wuxuu ka leeyahay doog floor blankeeda waa ujeedin sawiradeeda qaybtaana waa qaybta apartmentiska waa 4 dabaq halkii dabaqna wuxuu ka kooban yahay 2 apartmenti sawiradiisa daas la fiirino side view iyo front view kan markii guri hore ka fiirinaysid markii dhinaca ka fiirinaysid kan sawirada oo qaybta blockiska waaye kana sidoo kale front view waxa waa blockiska qaybta commercial hadii aan u imaano waxaa kusoo koobnay 3 qaybood number 1 oo ah market suuq number 2 oo ah petroleum station meel oo shidaal laga qaato number 3 oo ah isbitaal xaafadda isbitaal leeyahay ma lagu noolaan karo sababtoo ah qofka xag caafimaad ahaan wax walba dhici karo qof caafimaad kasta mooyahay ma jiro marketka hadii aan ku bilaabno hab noocan camal oo suuqan u samaysan yahay waa ujeedin isbitaalka asina noocan oo samaysan yahay waa isbitaal isku dheelitiran oo wax walba laga heli karo emergency hadii tahay emergency hadii tahay wax walba isbitaalka saasan waa laga heli karaa sidoo kale petroleum station kan habkan uu samaysan yahay waa meesha shidaalka laga qaato oo aan naqaan ajib hadii aan ugu gudubno qaybta institution-ka asiga 3 qaybood aan soo qaadanay oo school iyo saldhig iyo masaajid oo ku dhex yaalo dugsi quraan anaga dad muslimiin ah ay waajib waay in oo meel quraanka lagu bartay la helo iskuulka hab noocan uu samaysan yahay dabaq lagu biyaano waaye primary secondary waaye maxallaha jaamacad waliba gaarin xaafadda aad iyo aad u yar tahay kanna waxa waaye saldhiga magaalada saldhig leeyahay ma lagu noolaan karo sharci daro ma la iska soconaa xoolo maanaan waa nidaam iyo maamul in la helo oo magaaladaas looga dambeeyo sidoo kale masaajidka hab noocan camal uu samaysan yahay asigana qaybta gadaal wuxuu ka yahay dugsi qaybta horena wuxuu ka yahay masaajid qaybta ugu dambeysa waxaa waa public area meelaha dadka ay ku nafisayaan number 1 waa wada sports jecelnahay stadium sidoo kale cafe and restaurant oo ah markii oo xoogaa soo daashid meeshii oo cafe ka caagsi leh cuntada marka u baahatid meesha ka soo heli leh sidoo kale green rest area stadium ka noocan oo lagu samaysan yahay sidoo kale cafe and restaurant hab noocaas camal ay lagu samaysan tahay xaafadda waa ujeedin hadii tusaale ahaan inta ay ka tuso qaybtan ay ujeedin waxa waaye qaybta villooyinka waaye inta waxaa lagu yaalo saldhiga sababtoo ah magaalada marka laga soo galaayo maxaa la xarunta amniga inay ahaato waaye qaybtan waxaa waa guryaha loo yaqaano beeshuga inta lagu yaalaan qaybtan ay doog yihiin oo guriga gadaale inta waxaa lagu yaalo maxaa la inta waxaa lagu yaalo baakin sidoo kale kan guryaha beeshuga waaye kan guryaha waxaa loo yaqaanaa row agar blocks isku xiran waaye qaybtan waxay ka yihiin qaybta dhexe waxay ka yihiin doog kuwana apartmentiyada waaye kan masaajidkii waaye kan waxaa waa supermarketkii kana waxaa waa petroleum station-kii ay xarunta shidaalka laga qaadan lahay intan waxaa waa streets-ka nafiska ahay ay dadkii ay marayeen sidoo kale stadium-ka qaybtaada loogu yaalaa qaybtaasna waxaa waa green area oo ugu talagalay dadka inay ku nastaan ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan halkan ugu mahadceliyo ustaadkayga qaaliga ah Ustaad Injineer Saadiq Suufi oo aad iyo aad ii dhiirigeliyay wax badan ii soo fahansiiyay ahna aasaasa shirkadda Almatin Company waxaa leeyahay ustaad aad iyo aad ugu mahadsan tahay sida habsamida leh aan nooga soo qayb qaadatay waxbarashadeena aad iyo aad ugu mahadsan tahay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ustaadkayga soo baray maadada arbanka Ustaad Injineer Cabdiraxmaan Injineer Cabdullaahi Suleymaan asina aad iyo aad ugu mahadsan yahay sidoo kale dhammaan macallimiinteeda kama tagin ayagana aad iyo aad u mahadsan yihiin sida habsami leh ay ugu soo qayb qaateen waxbarashadeena aad iyo aad u mahadsan tihiin insha Allah waxaan rajaynaynaa waxa ayna barteen inaan sidaan isaga fiican u soo bandhigi doono waana mahadsan tihiin sida ay u yeesteen